وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أبو هريرة وحو يري ربي راليه كان نقضي رسول كيني محمد صلى الله عليه وسلم وحو يري laba qolo oo hilibnaarka ka mid ah ayaa soo bixi doona gadaashay iman doona anigu aanan arki doonin. waa ta koobaade qolo budad sidata sida saynta lo-aad oo kale ah oo dadka ku garaaci doona, iyo dumar dhar xidhan haddana si qaawan oo jidhkooda iyo cawradooda laga dhex arki doona, oo si isjejebin iyo ismacnayn ku jirtana laga dheehan doono, oo madaxyadooda ku soo guri doona sida kuruska awrtoo kale burukooyin iyo timo beenbeena kusoo buuxin doona. kuwaasi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam jannada ma geli doonaan, iska daa inay galaane uma jirsan doonaan intaa iyo intaa, xitaa udgoonkoodii carafteeda ma orin doonaan. haddaba walaasheeda muslimadda ahow, inaanu jannada alla kaa qadin, cawradaada iyo jidhkaaga astur, oo marka suuqa u baxaysa marka aroosyada tegaysaan iska ilaaliya si aydan dembi alla oydan ugu dhicin, waayo wixii ilaahay ka cadhaysiinaya adigana dembi kuu soo jiidaya inaad iska ilaalisaa fiican. haddaba walaasheeda muslimadda ahow, talada aan ku siinaya qaado. haddaad maanta nooshay waad dhiman, haddaad maanta caafimaad qabto waad xanuunsan, haddaad maanta dhallinyar tahay waad gaboobin, haddaad maanta qurux badan tahay waad gaboobin. markaa walaasheeda muslimadda ahow waxaan ku leeyahay taladaa qaado. meeshuu ku tukanayay nabigu markaa ba istaagi jiray, salaad buu geli jiray. taariikhda maanta hadday muslimiintu mashaakilka yara caalamka maanta laga sheegaya basiidka hadday salaada tukan lahaayeen oo masaajidda camiri lahaayeen oo qur-aanka akhrisan lahaayeen oo sadaqada bixin lahaayeen oo ilaahay baryi lahaayeen oo ay toobad keeni lahaayeen oo gaaladana ku odhan lahaayeen soo islaama waad nabad galaysaane mashkiladda caalamka taala ilaahay waa xallin lahaa mar keliya. meel kale qalbigiinu ku xasili maayo, meel kale ku raaxaysan maayo qalbigiinu. qalbiga waxa keliya ee deeqa waa maxay? ilaahay macrifadiisa. kii ku abuuray garo, wuxuu adduunyada kuu keenu kuu abuurtayna garo. intaas allihii ku abuuray garo, walaa ilaaha ila allah. waxuu ilaahay kuu abuurtu kaa doonayayna garo, waa muxamadu rasuulullah sal alla alay slam calaa dariiqati rasuulku caabud ilaah. ilaahay baa ku keenay adduunka, iskama dhiman adigu. iskama dhimanay sida amar ilaahay baad ku dhiman, amar ilaahay baad ku timiday, amar ilaahay baad ku joogtaa, amar ilaahay baad ku socotaa, amar ilaahay baad ku seexanaysaa, amar ilaahay baad ku soo kacaysaa, amar ilaahay baad wax ku arkaysaa, amar ilaahay baad wax ku maqlaysaa, amar ilaahay baad waxtar ku leedahay, amar ilaahayna waad ku dhimanaysaa. sida khalqiga ilaahay jalla wacalaa cid la sheegatoo tidhaahda annakaa samaynay aynan u jirin ee gaal iyo muslimba ay tirayaan inuu ilaahay khaaliq yahay, kadalika amarka adduunyada ku socdana ilaahay xaggiisu ka yimaadaa, meel kale amarku kama yimaado. amarka xaguu ka yimaadaa? allah xaggiisa. isbeddel baa adduunyada ka dhacay, ilaahay baa keenay. dad baa dhashay, amarka ilaahay bay ku dhasheen. dad baa dhintay, amarka ilaahay bay ku dhinteen. dad baa amni haysta, ilaahay baa amniga ku deeqay. dad baa colaad iyo cabsi lagu riday, ilaahay baa u qadaray. dad baa barwaaqaysan, barwaaqada ilaahay baa u qadaray. dad baa abaar haysataa, abaarta ilaahay baa u qadaray.
nidaamkan caalamka ilaahay gacantiisu ku jiraayo gacan kale kuma jiro. man lillahi al-amru jamiica qul inna al-amra kulluhu lillah biyadihi al-khayr biyadihi al-khayr khayr oo dhan gacanta Alla ku jira gacan kale kuma jiro. nidaamkan adduunkana gacanta ilaahay buu ku jiraa gacan kale kuma jiro. isagaa babadilaya. maalinta isagaa keena, habeenka isagaa keena, jiilaalka isagaa keena, guga isagaa keena, kuleylka isagaa keena, qabowga isagaa keena, daruurta roobka keenaysa isagaa keena, barwaaqada isagaa keena. waxa adduunyada isbeddel ka dhacaya waa isagaa keenaya. haddii la eegana isbeddelka wuxuu ku salaysan yahay bini aadamka camalkiisa ilaahay eegaya. bini aadamka camalkiisa ayaa lagu salaynaya. haddii caalamkan dadka ku nool camal wanaagsan uu ka soo baxayo xaggooga oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba camal wanaagsan malaa'igtu ay u geynayaan, adduunyadani waxay noqonaysaa janno ku sug bay noqonaysaa. laakiin bini aadamka camalka ka soo fulaya hadduu camal xun u noqdo, ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadhoonaya, deedna xagga samada cuquuba ka soo degaysa cuquubo. laa taqacu lmusiibatu ila bidanbin walaa tarfacu ila bitawba. masiiba adduunyada kama dhacdo ilaa dembi la galabay ku timiday. balaayo iyo masiibana ilaahay ummad kama qaadin ilaa toobaday toobad keeneen baa ilaahay masiibada kaga rafaca. saa daraaddeed bay nebiyadu calayhim asalaatu watasliimaat waxay ku dadaalayeen bani aadamkanay ku dadaaleen. meesha bini aadamka ay kaga dadaaleenna waa qalbiga. shayga qalbiga bini aadamka uu ku bogsadaana waa ilaahay macrifadiisa. idan nebi kastoo adduunka yimiday wadiifada uu la yimiday waa addacwatu ila allahi caza wajalla, inuu nebi walba dadka ugu yeedho ilaahay xaggiisa. waxa bini aadamku ay haystaan markaas ayuu nebi walba dadkiisa ka soo goynayey, ilaahay buu ku soo xidhayay. waalidu cimraan, saxaabiga cimraan binu xuseyn la odhan jiray radia allahu canhuma. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.